dunida waxay dadka lamaanayaasha ah maanta u dabaaldegeen munaasabadda Valentine's Day oo ah maalin la xusho jacaylka. Maalintani waxay bilaabatay xilligii boqortooyadii Roomaankii hore. Boqorkii waagaasi ee Roomaanka oo la oran jiray Claudius ayaa kala fogeeyay wiilasha iyo gabdhaha guurkooda iyo kulankoodaba, wuxuuna ogolaaday oo kaliya habeenka dabaaldega boqortooyadiisa in gabadh waliba ay warqad uu ku qoran yahay magaceeda sanduuq yar ku rido. Kadibna sanduuqaasi ayaa wiil waliba warqad kala bixi jiray, sidaasi ayuuna ku raadsan jiray gabadha magaca ugu qoran. Kadibna inta ay xafladda socota ayay wada joogi jireen. Halkaas ayaa si nasiib ah habeenkaasi qof calool galaa uun ku dhalan jiray. Sanadka intiisa kale ma aysan kulmi jirin ilaa laga gaaro sanadka dambe ee dabaaldega xiga, iyo sidoo kale cidda nasiibku isku beego. Mana jirin wax ballanqaad ah labadii sanadkii hore kulmay in ay dib u kulmi doonaan. Sidaas darteed gabar waliba warqad uu ku qoran yahay magaceeda ayay sanduuq ku ridi jirtay. Kadibna sidaasi ayuu wiil waliba warqada kala bixi jiray sanduuqa. Sababta uu boqorku sidaasi u sameyn jiray ayaa ahayd inuu gali jiray dagaalo badan, dagaaladaasina uu u baahnaa askar badan oo rag ah. Sababtaas darteed waxa uu rumaysnaa in haddii uu guurku fasaxo in aysan ragga dumarkooda iyo cidda ay jecel yihiin ka tegi karin, taasna ay keenayso inuu nin waliba dagaalka ka baaqdo. Laakiin habkani uu ku mamnuucay guurka uu xal u yahay in nin kasta hore ka galo dagaalka maadaama aanu waxba ka tegayn. Muddo kadib waxaa soo baxay wadaad Valentine la yiraahdo oo si qarsoodi ah isugu guurin jiray wiilasha iyo gabdhaha Kirishtaanka ah. Muddo kadib ninkaasi waa la xiray, waxaana la sheegay in jirdil iyo ciqaab jeelka loogu dhex geystay awgeed uu u dhintay 14 bishii Febraayo oo ku aadan maanta oo kale. Ninkani lagu magacaabo Valentine ayaa dadkii xaaladiisa la socday u yaqaanaan shahiidkii jacaylka. Baadirigii Pope Gelasius ee diinta Kirishtaanka ayaa sanadkii 496 ee milaadiga si toos ah u aqoonsaday in maalinkani la xuso sanad walba 14 Febraayo. Intaasi ayaan ku soo koobayaa sida ay ku timid maalinta jacaylka adduunka ee Valentine's Day. Fadlan la wadaag asxaabtaada. Waxaa jira kuwa maalinta 14 Febraayo ku aadiya maalinta guurkooda, iyo kuwa kale oo maalintani ku qorta sharciyada iyaga oo iska dhigaya in ay dhasheen, balse ma oga in uu Valentine uusan ahayn maalin ama magac jacayl ee uu yahay nin gaal ah. Sidoo kale haddii aad ku cusub tahay janaalka nagu soo biir, mahadsanid.